asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. kusoo dhowaada mar kale iyo mid ka mida barnaamijyada aan idinkugu talagalnay. qodobada barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ciidamada booliiska Israa'iil oo sheegay in laba qof oo hubaysan ay maanta weerar ku qaadeen oo ay dil iyo dhaawacba u geysteen dad Yahuuda gudaha Israa'iil. tafaasiil ku saabsan weerarkaas, cidda weerarka qaaday, halkay ka yimaadeen iyo waxay ahaayeen iyo wararkii ugu dambeeyay arrinkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xisbullah oo iyaduna sheegtay in ay weerartay saldhigga hogaaminta ciidamada Israa'iil. haddaba khasaaraha halkaa ka dhashay iyo sida xaalku yahay iyo ciidanka Israa'iil gudihiisa oo kala carar weyn uu ka jiro maanta ayaynu barnaamijka idinkugu haynaa. qaybaha kale ee barnaamijkana waxaanu kusoo gudbin doonaa ciidamada Maraykanka oo sheegay saacadihii lasoo dhaafay in ay soo rideen laba ka mida droniska Iiraan. haddaba xaaladda marinbiyoodka Hormuz oo iyaduna kacsan wararkii ugu dambeeyaan idin hayaa. qodobadaas ayaynu barnaamijka kusoo qaadan doonaa. inta aan ku jirnana wixii kaloo tafaasiil dheeraada soo dhaco waan idinla socodsiin doona. warbaahinta caalamka iyo kuwa Israa'iil xilligan aan idinla hadlayo waxaa haysta ambalaasyada booliiska oo meel walba xiray gudaha Israa'iil kadib markii la sheegay in laba nin oo gaari wata oo hubaysan ay rasaas la dhaceen dad Yahuuda meel ay ku sugnaayeen, iyadoo weerarkaas weliba uu sababay sida la leeyahay dhimasho iyo dhaawac. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee Al-Jazeera ay ka qortay markan aynu ku bilowno. Al-Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay hal qof ayaa dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay deegaanka la yiraahdo Kookhaf Yair, deegaanka la yiraahdo oo gudaha Israa'iil ku yaala. haddaba warbixintu way sii socotay. waxaa la sheegayaa warar muhiim ah oo ku saabsan toogashadan ayaa waxay sheegayaan inay ka dhacday deegaanka loo yaqaano khadka cagaaran. haddaba Israa'iiliyiintu waxay xaqiijiyeen in hal qof uu ku dhintay, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. laba ka mida dhaawacooda uu halis yahay, halka 3 kalena la sheegay dhaawacoodu inuu markaa meel dhexaad yahay. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in rasaasta ka dhacday halkaasi ay ahayd deegaan ay markaa joogeen dadka Yahuudda ah. warbaahinta Israa'iil ayaa si faahfaahsan uga warbixisay arrinkan. waxay sheegeen labada qof ee weerarka soo qaaday inay wateen gaari nooca loo yaqaano Toyota, waxaana la sheegay gaarigaasi inuu watay taarikada Israa'iil. kadib markii la sheegay mid ka mida isagoo dhaawaca in gacanta lagu dhigay oo la qabtay, halka midka kalena la sheegay inay booliisku raadinayaan. waxaa la xaqiijiyey inay labaduba carab yihiin oo Falastiiniyiin yihiin, oo la sheegay inay haysteen dhalashada Israa'iil. waxaana la sheegay in markaa la horgeyn doono sida ugu dhaqsaha badan maxkamadda. labadan marka waxaa leeyahay waxay ahayn carab Falastiiniyiina, gaariya soo qaateen, nagte ka saareen. marka iyagu hadda waxay leeyihiin hal qofaa meeshaba ku dhintay, 2 waa garaab, 3na waxaa loo qaaday waxay iyaguna yihiin xaaladoodu meel dhexaad, dhaawac meel dhexaada ayaa maaragtay ay qabaana la leeyahay. marka xaaladdu aad ay u kacsan tahay. ninkii bin Ghafiir ahaa ayaa soo hadlay oo leh waa in dadkan horey laga toogtaa, xabsi waxaan yaa lagu lugoyne. baarlamaanka waxaan soo marinay dadka Falastiiniyiinta ah ee dhibaatada iyo khatarta u geysta Israa'iiliyiinta Yahuudda inay maaragtay sharciga uu qabo in la toogto oo la dilo. marka nimankaa waa in la toogtaa uu leeyahay. marka xiisadu aad ay u kacsan tahay. wararkaasu marka waxaa waaye wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xaaladda. qodobka marka waxay ka soo kordha waa arki doonaa. qodobka labaad ee muhiimka ah barnaamijka aynu ku soo gudbanayno waxa uu yahay
xisbullaahi ayaa goordhow waxay soo saareen war ay leeyihiin waxaynu weerar ku qaadnay diyaaradaha droniska weliba nooca la yidhaahdo abaabiila la yidhahdaa waxaynu ku weerarnay talis ciidanka israa'iil ay ka hogaaminayeen howlgallada qaybo ka mida koonfurta lubnaan dukum daakuma ka dhigna leey diyaaradahu waa noocaan soo laabanayn waa lagu soo diraa way kugu dhammaanaysaa way kugu qarxaysaa wax inay soo noqdaan loogu talagalay baba kuwana baasuukayaashooda ayagoo watay ku soo galayaan marka nimankii saakay waxaa la dhahay tii ugu xumayda mar kale lagu dhigaa la leeyahay haddaba markaan idin tuso telefishinka aljaziira ayaa qoraya war uu ka soo xigtay xisbullah haddaba waxay leeyihiin xisbullaahi waxay sheegtay inay bartilmaameedsatay xarunta israa'iiliyiinta oo ciidamadoodu ay ku sugnaayeen koonfurta lubnaan haddaba bayaan ay soo saareen xisbullaahi waxay ku sheegeen goobta ay weerareen inay ahayd xarunta hogaaminta ciidanka israa'iil deegaanka la yidhaahdo al-naaqura waxayna halkaa la dhaceen sida la leeyahay diyaarado daroona oo nooca isqarxinaya ah oo noocoodu weliba yahay nooca loo yaqaano abaabiil meeshaasu markaa si fiicana jugta la isaga geliyey halkaas marka waa la qarxiyey waxaa sidoo kale ciidanka israa'iiliyiintu ay sheegeen in howlgallo ay ka wadeen deegaano ka mid a koonfurta lubnaan ay dib u soo laabteen kadib markii iyagana iska caabin daran ay kala kulmeen xisbullah marka iyagu intaa ma ku joogsanayaan maya iyaguna waxay qaadeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku weerareen meelo kala duwan oo ka tirsan koonfurta lubnaan haddaba marka nin ahaan jiray markii hore wasiirka difaaca haddana xisbi madax ka ah mucaarada oo israa'iili ah ayaa wuxuu leeyahay ciidamadeenu gacmaha laga qabtay maraykanku annagu waana qabtay inuu meel walba inaan duqayn karna noo fasaxay ahayd koonfurta maaragtay bayruud meesha caasimadda meel kasta inaan duqayno nimankanu haddaanan duqaynayn bayruud waynu nagu soo wadahayn maanta dhan marka warkaasuu isaguna uu ku doodayaa ninka mucaaradka oo yahuudiga wuxuu leeyahay in nala fasaxo waayo hadda waxaa naloo diiday maraykanku noo diidan yahay inaynu lubnaan dhan weerari karno bayruud weerari karno marka dadka wax falaqeynaya waxay leeyihin bayruud maxaa kaa jira xisbullah maa bayruud joogta halkaanay joogaan droniska ka soo ridayaan oo ay nagta kaaga saarayaan maa iska dhicis maxaa xagga u aadaysaa intaas waxay rabaan marka dadka masaakiinta inay laayaan oo culays saaraan xisbullah dadku ku kacaan oo yidhaahdaan dadkii waa la laynayaa waa kuwaan israa'iil wayna baabiis intaasay rabaan marka sheekadaasu marka halkaasay iyaduna maraysaa waa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay waayahay taliska ciidamada maraykanka ee la yidhaahdo CENTCOM taliska dhexe ciidamada maraykanka ayaa waxay soo saareen iyaguna maantay war ay ku faahfaahinayaan laba ka mida droniska iiraan inay soo rideen waxay ku soo rideen hormus ayagoo dul maraya sababtay u soo rideen waxay khatar ku ahaayeen hanaanka socodka hormus maraakiibay weerari rabeen marka waa ka hortagna waa soo ridn iiraan tafaasiil badan ma laga hayo inay maaragtay laga soo riday diyaaradaha iyo in kale laakiin waxay sheegayaan diyaaradaha inay beegsadeen oo ay soo rideen sababta ay u soo rideen ay arrintaas tahay oo ku saabsan inay khatar ku hayeen waxa la yidhaahdo isu socodka gaadiidka badda intaasay markaa qiil ka dhigteen haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey taliska ciidamada maraykanka ee la yidhaahdo CENTCOM ayaa sheegay inay soo rideen laba ka mida droniska iiraaniyiinta ah meel ku dhow marinbiyoodka hormus taliska ayaa waxay sheegeen ciidamada maraykanka ee CENTCOM inay labada dronisa soo rideen waxayna sheegeen inay khatar ku ahaayeen isu socodka caalamiga ah ee marinbiyoodka hormus dhanka kale maraykanku waxay leeyihiin ciidamadeennu waxaanu gelinay heegan aad u sarreeya si aynu uga hortagno waxa ay ku tilmaameen weerarada gardarrada ah ee iiraan العدوان الأمريكي يا العدوان الإيراني ومكتئ
العدوانك وورد قردردا عدوتنمدا لغداس waxaa isticmaalaysa إيران markii weerar Mareykanka ku soo qaado waxay isticmaalayeen luqad ah weeraro gardarro oo cadawtinimo ah ayaa nala ku soo qaaday Mareykanku nagu soo qaaday Mareykankii marka luqadii uu isticmaalaya isaguna baata wuxuu leeyahay ciidankeenu maadaama laba daroon aan ridnay heegan buuxaan gelinay si aynu markaa isaga caabino weerarada cadawtinimada iyo gardarrada Iiraan anaguna u gardaroonaysaa adduunku marka halkaasuu baraya halkaasuu joogaa waayahay qodobka isaguna halkaasaa kaga gudbaynaa qodob kale oo muhiim ah jira shalay waxaynu ka hadlaynay barnaamijyadeedaan u malaynayaa in Mareykanka fiisihii uu siiyey kooxda kubadda cagta Iiraan inkastoo dhibaato badan ay mareen laakiin Iiraaniyiintii xalay waxay qabteen shir jaraa'id waxay yiraahdeen raggii kooxda mas'uuliyiintii la socotay macnaha kooxda inteeda kale fiisihii waa la siiyey Mareykanka ay ciyaarta koobka adduunka ku ciyaari laayeen laakiin ilaa dhowr qof fiisaha loo diiday oo soo fiisi u soo baxay safiirkii marka Iiraan ee joogay Mexico maadaama ciyaaraha lagu kala qabanayo Mexico iyo Mareykanka ayaa saxaafadda la wadaagay saacadihii la soo dhaafay wuxuu leeyahay dhibaatadaasay Mareykanka ugu hayaan way maartay ciyaartooydii hadii la siiyay dadkii la siiyay shaqaalihii la socday qaar kamida loo diidaa fiisa tiimku uu wada socdaa dhaqaatiiru leeyahay niman kubadda ciyaaru leeyahay wuxuu leeyahay niman maartay maamulka ka socda marka wuxuu leeyahay dhibaatadaas aan haysan marka Iiraan iyo waxay ka dhex taagan tahay xiriirka kubadda cagta ee caalamka ee FIFA la yiraahdo halkaas marka wali mushkilada ka taagan Iiraaniyiinta culays badan lagu hayaa marka waa arki doonaa marka wixii arrimaha ka soo kordha qadar xayisiisa kadib intaan barnaamijka ku jirnay wixii tafaasiil waan idinaya oo warar oo soo dhacay kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta waxada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka marayna qaybtan alaaba waxaanu ku soo qaadanaa intaynu barnaamijka ku jirnay wixii akhbaara ee soo dhacay haddaba barnaamijka inta ku jirnay marka waxaanu ka hadlaynay Mareykanku inay riyaadeen waxaan soo ridnay laba drones diyaaradaha iyagu iswada ayaanu soo ridnay kaligood okay Iiraan war ma soo saarin markaas laakiin hadda inta barnaamijka ku jirnay waxaan ayaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay Washington waxay ku xadgudubtay xabad joojintii noo dhaxaysay waxayna sugi doonaan weeraradeena culus wasanaruddu waanu ka jawaabi doonaa oo jawaabtaas siin doonaa wali والله صعدا ما لي آدم ما كويدي كبسكعين دوران ما بحرين مالمان كويدي بحرين على بسكعيا مقتي مركا حالكم مركا هالكا سوتشوغا وركاس ayaa ugu waaweynaa wixii akhbaara ee ka jiray bariga dhexe hadii alla idmo barnaamijyada soo socda ayaanu wixii kale soo kordha idin kula wadaagi doonaa like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay meel kasto naga daawanaysaan waxaan idin leeyahay intaanu mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo